kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan dhagaystayaasheena qiimaha lahow waa 7 bisha Agoosto sanada 2016 kuna soo dhawaada barnaamijkeeni kaftanka isboortiska oo si wada jira idinku daadihinayaan Luul Shaalu iyo anigoo Cabdiqaadir Boosa ka bogasho wacan insha Allah. kaftanka isboortiska waa kulanka dhalinta maanta ha iskarinin dhiigo kurbayuusan kugu ridin kelmadaheena qosolka kuleelqa saxaw arag. barnaamijka kaftanka isboortiska waa barnaamij ahadla wuxuu soo galaa 7 fiidnimo saacada geeska Afrika. kabtanka xulka qaranka Xasan Sheekh ayaa ku qancinaya kabtanada kooxaha Puntland iyo Jubaland in waqti loogu daro ciyaartan 90 minute ku istaagsan. duqan xasaskiisa boos joogta ah ka siista xulka ayaana jeclaan lahaa in 6 minute oo dheeraad ah la siiyo si uu guulo muuqdo u gaaro. dhanka kale xidiga Cabdikariim Guuleed ayaa ka maqnaa kulanka maadaama qalin wadnaha loogu qaaday Hindiya. dhaqaatiirtiisa ayaana uga digaya madaalaha reer Galinsoor inuusan dhameysan kulamadiisa kana fogaado xamaasada kulamada darbiga sida kan Puntland oo kale. xulka qaranka Itoobiya ayaa u muuqda mid aan ka soo qayb gali doonin tartamada Champions League Africa taas oo fursad weyn siinaysa xulkeena qaranka Soomaaliya. taageerayaal careysan oo aaminsan in kooxda Tigreegu laaluush ku hanteen horyaalkii 26 sano ugu dambeeyay ku guuleysanayeen ayaa dab qabadsiiyay gudaha dhowr garoon oo caalami ah. xulkan hormuudka uu ahaa in dhalinteenu boos joogta ah ka helaan horyaalka badda halka kuwa qaarna faraka ciyaar ku raadiyaan jannada ayaa u muuqda mid ku soo dhawaanaya tartankan aan 27 sano ugu dambeysay dhex muquuranaynay. inkastoo bahdayada isboortiska jeclaan lahayn nabad waarta haddana kama nixi doona in kaalinta dalkeena uu jooga iyana soo tiigsadaan. kaamirada ayaa dib loo celiyay markii taageerayaasha xulka ay dalbadeen in lafdhabarka qaranka Cabdisalaan Hadliye balse ay yara u arkaan taagal mamnuuc oo laacibkan ku mudan karay kaarka casaanka. xidigan isagoo da ah kamid ah safka macalin qoslaya ayaana ka walwalsan in loo soo bandhigo isagoo dhaawac u geysanaya xidig Soomaaliyeed taas oo laga yaabo in garoomada ay ka maqnaato 9 bilood. qubrada qaar ayaana ku doodaysa in fadeexadan ay soo gabagabeyn doonto kasii mid ahaanshihiisa xulka qaranka. naadiga faca weyn ee reer Hiiraan ayaa weli ka biyo diidan ka qaybgalka tartanka Federal Cup-ka Soomaaliya. kooxdan jicibta isticmaasha aalmiitada ka hor ayaana ku doodaysa in tiimkooda loo qeybiyo 2 koox taasoo qayb ka ah dastuurka isboortiska qaranka sida ay qabaan saraakiisha isboortiska ee Damajdiid. sidoo kale ciyaartooyda reer Hiiraan ayaa isku raacay in kooxda heerka koowaad laga saaro goolyahooda heerka caalamiga ee Dabageed iyagoona uga shakisan in la laaluushay. geesta kalena kabtanka Damajdiid ayaa uga digay kooxdan ku tababarata Beledweyne in bedel ay u isticmaalaan Nicholas Kay ciyaartan la isku mari laayahay 90 minute. siraado ay xujaydi socota samsamba macana taageerayaasha Soomaalida ayaa Twitter-ka ku jahjahay xidiga Cabdiraxmaan Ukraine kaasoo isku dagiisa bilisyonada aaminsan inuu la heeryahay xidiga reer Jabuuti Cawalaadan. xidigan aan lahayn cid ceshato ayaana qarash badan ku bixinaya sidii ciyaaraha fanka darajo weyn ugu gaari lahaa xilli uu durbahantay biladaha laacibka ugu geysan fanka uguna adkeysan og aflagaadada taageerayaasha. biladan oo 2 sano ee ugu dambeysay uu iska haystay laacibka Cumar Shooli. warar hoose ayaana sheegaya in Xasan Cabdiqaadir Muudoy uu yahay tababaraha xidigan maadaama luuqadiisa dadku ku qoslaan marka xitaa uu caadi kugu sheekaynayo ciyaarihiisa kadib. gabadh wadan gaalo ka timi oo halkaa waxay ka soo baratay rabta innaga inay akhlaaqda iyo diinteena ku falsaadiso oo lacag ayna kaga qaadato dadka madaranki baa ka dhintay. kooxda culimadiinka Garowe ayaa ka dhawaajiyay in ay baajin doonaan bandhig lagu wado in magaaladaasi ay ka sameyso xidigta caanka baxda ee Nasteexa Indho. fanaanadan kaamirada ka qabata inta hore ayaana u muuqata mid ku fashilantay safarkii Garowe walow soo dhaweyn heer sare loo sameeyay. sidoo kale xidiga DJ Subeer ayaa ku fashilmay in dadku ay gartaan magaciisa. isticmaalka Snapchat-ka oo ku yar deegaankaasi ayaana sabab u ahaa in joog dheerahaasi isku haysta xidig caan ah dadku u maleeyaan curadka Nasteexa Indho oo dhaqan celis dib loogu soo celiyay dalka.
kaabaha dahabka saxaafadda cabdimaalig codon ayaa abaabulay kulan tabaaruca oo sadaqo lagu aruurinayay dadka dhimirka la shaashada isboortiska ayayna kasoo muuqday wasiiruhu ka mid yahay odawaha kuwaasoo ka qayb qaadanaya tartanka kaalme kuwan xidigan aan isnaashnaashin ayaana heesta kaabaha dahabka ee taageerayaasha isagoona sanadan mar kale kusii saqaya hanashadeeda maadaama xili uusan jirin shaksi la baratami karo laacibka daaribistal oo fiyuwiskiisa gaaray heerkii ugu liitay abed ayaana isku daya inuu propaganda uu ka sameeyo halyeygan reer burco walow shacabku ay ka dhagsan yihiin xogta xidigaas maalinkii xitaa ku qarwo maareeye markana u diyaar garooba xubintani baafinta waxaa la baafinayaa xidiga reer USA maxamed barastimool markii cid ugu wardambeysana wuxuu xirnaa shaatishaal ragaadii garbasaar ka risa haddaba cid alaaliya cidii aragta laacibkaasi jecel in dharka dumarka majaajulo ku sameeyo waxaa laga codsanayaa in dhaqan cilis u geeyaan xarunteena garbahaareey haddii uu qolkiisa kasoo bixi waayana waxaad daaqada ka tusi kartaa bacweyne haatan socdo una sheeg in video ka duubi doonto isagaa banaanka orod ugu soo bixi doonee waxaa la baafinayaa xidiga kooxda shabaab cali dheere markii cid ugu wardambeysana wuxuu guul u haystay guuldaradii 5 iyo eber kooxdiisa ka soo gaartay Puntland haddaba cid allaalay ciddii aragtay wadaadkaasi aan naftiisa u quurin qaraxa waxaa laga codsanayaa in wada hadal rikoord jabin ah ay kala soo wareegaan kooxda shabaab haddii qiimahaasi uu warbaahinta kaga soo muuqan waayana waxaad taayar ku hor banjarin kartaan agagaarka xarunta xalane isagaa mahad ilaah muuqiisa ku soo bilaabi doone intaas ayaynu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni kaftanka isboortiska galabtana barnaamijka waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya luul shaaluuy anigoo cabdiqaadir boos barta aan ku leenahay facebook ayaadna ka daalacanaysiin halku dhigeennu waa lagu xanto lagu xasuusta ayaa ka horeysa waa bahda barnaamijka oo isku duuban oo idin la gaashaankiina noolama keena dooqa dhegaystuuna waa Ayub Abdidon from Germany iyo dalabkii heestii caadi bay iska dhigayaa dayaxdan nuurshe ila daawo Descobrir